aaway dadkii wax bartay aaway cuqaashi aaway dhulka maxaa loogu ducayn laayahay dhulkaasoo dhulkeennii ma aha kaan ku dhalanay sow ma aha kaan biyihiisa cabnay sow ma aha kaan sidan quruxda badan aanu u fadhina sow ma aha dal yaa burburiyayaana dhisa sow dhalinyarada ma aha idaylkiin daa'yar ayaa tihiin waad dhalinyar tihiin waxaad doonaysaan inaad idaylkii nolol wanaagsan ku noolaataan dalkiinina ma rabtaan inaad ku noolaataan waad tahriibaysaan waxaad aadaysaan dal shisheeyaad tegaysaan bad baad sii maraysaan iyo saxaaro oo aad arkaysaan dhibka iyo balaayada taala aad arkaysaan dhaxdii lagu wada dhimanayo bacaadka iyo biyihii ayna wada liqayaan aaway sabirkii dalka loo sabri lahaa aaway dulqaadkii dhulkan loo dulqaadan lahaa aaway xooggii iyo xooggan idin haysta xooggan maanta aad leedihiin dhalinyaronimadan quruxdan yaa idin siiyey war ma Orobiya America idin siiyey soo baydhabo idinma siinin sow baydhabo idinma siinin sow baydhabo biyaheedii soomaydan cabbi sow kumaydan dhalanin soo miraheedii moordideedii soomaydan cunin gallaydeedii dhulka markuu idin dhalay uu caanihiisii idin siiyey uu calooshii idin buuxiyey idin arra tiray idin oon tiray idin maaragtaaye gaajo tiray oo idin jahli tiray weliba jahliga uu idinka qaaday sanooyin weliba free iyo bilaash aad wax ku soo barateen qur-aankiisii iyo maadigiisiiba diintiisii iyo maadigiisii aad barateen maxaa loo baahnaa markaad yeelateen xoog 20 jiro markaad noqoteen ii sheega markay hooyadiin dhulku waa hooyadiin markay 20-30 sano idinla ekaysiisay maxaa loo baahnaa ilaahay muxuu yidhi markuu waalidka ka hadlaayay imaa yablughanna cindaka alkibar axaduhumaa aw kilaahumaa maxaa la yidhi falaa taqul lahumaa uf walaa tanharhumaa waqul lahumaa qawlan kariima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وعلي الدعاء ده هدي هذا كجاران لو كان داب وجارس وموجودين والدك الله ده يا ده هذا هدي كجاران الدعاء ورارعي عنانن هوسب رواين هكفضضان قربك ورارعي وحاتر هذا إلهه سيدي أي مركان يرى برباريا إلهه وكل كالو بربار الله waxaa lagu cabiray dhulkii hooyo aabi hooya ka qaalisan wad ogsoontihiin hooya qaalisan 75% xooggeeni xoolaheeni waxbarashadeeni wehelkeeni wanaageeni ay leedahay hooyo aaba 25 baa la siiyey labaduba waanu jecelnahay hooya laga cabiray dhulkii 75 dhulkan wuu daalay yuu ku daalay aaway wiilashiisii aaway wiilashii u dhalay aaway reer baydhabo aaway magaaladan maxay idinkaga baahan tahay waxay idinkaga baahan tahay xooggii iyo wanaagii iyo dadaalkii uu idin geliyey inaad u guddaan buu u baahan yahay soo ma ogid yuu sugayaa oo aan idinka ahayn yuu sugayaa ma dal shishe yuu sugayaa idinkuu idin sugayaa inaad ammaankiisa dhowrtaan idinkuu idin sugayaa sow maaha idinkuu idin sugayaa jahligiisa inaad bixisaan inaad fitantiisa saartaan inaad ummaddiisa walaalaysaan inaad qalbiyadiina isu xaadhaan idinkaa idinkaga baahan yahay waxaa la rabaa walaalka ag jooga inuu walaal u noqdo waxaan aaday Oroba 4 sanaan kula laabanayay markaan meeshaa tegay hadday Soomaalida dibadda joogta ay maqlaan Kenyawi waa reer baydhabo hadday maqlaan wallahi si khaas ay salaamayaan in azumi jirin bimujarrad waxay ugu azumayaan inaan ahay wiil reer baydhabo ah wanaaga lama fiirinayo qabiil maxaa waxay kulligeen waxaan ahayn hal qabiil baanu ahayn qalbi qof kaliya aanu ahayn waa reer baydhabo nagu filan annagoo dhan walaalka dhiigga xataa kaasa nooga dhawaa war miyaanay ahayn soo run maaha warkaa reer baydhabo soo hal qabiil maaha soo hal qalbi maaha soo hal reer un ma ahayn hana deeqo reerka la yiraahdo hana deeqo muslim qabiilkeena waa maxay muxaaway qabiilkeena magaciis allah nagu nooleeyo allah nagu dilo allah nagu soo saaro qabiilka isaga walaalayaal
arrinka labaad ee aan rabo qarannimada inaan ilaashano weeyaan, inaan dhulkan ilaashano, ammaankiisii, caafimaadkiisii, nadaafadiisii, waxbarashadiisa inaan ilaashano weeyaan. waxaan rabaa markaa in baydhabo hal qabiil ayay ahayd baan idin idhi, kulligeena hal qabiil ayaanu ahayn. waxaan rabaa bal shaygiina kala geeyey maanta waxaan meelaha qaar ka maqlayaa oo run ah, idinkana aad ogsoon tihiin in qabiil qabiil loo kala degan yahay, in la isdagaalay, in dadkii uu iskala magacyo qaab daran uu isu bixiyey. waxaan rabaa maanta inaan idin xusuusiyo hal shay, ballanna inaan kala qaadano ayaan doonayaa. rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay arbacun fii ummatii min amri aljaahiliyati laa yatrukuunahunna. afar shay ma lay maqlaa? dadka gadaale may maqlaan? afar shay waa dhaqan ibliis oo ummaddayda maanta ay ku dhaqanto. afar dhaqan, afar caado, afar xaaladood oo maanta ummaddayda ay ku sugan tahay. waa arrinkii jaahiliga waaye, mana ka tegayaan. iyagoo weliba iyagoo muslim ah, islaam haysta, ayay afar caada oo caadooyinkii ibliiska waagii aanu islaamka jirin ay ku dhaqmi jireen ee ummaddayda maanta ku dhaqmaysaa. laa ilaaha ila allah. laba ka mida waxa waaye alfakru fi alaxsaab waalطacnu fi alansaab. waa in qabiilka lagu faano, kan kalena kiisa in la duro waayo. war maanta ma taallaa mise ma taallo? way taallaa. rasuulku runtiisa fiiri, isku salli xabiibkaaga sala allahu calayhi wasalam. in qabiil lagu faano, in la faano, yaa bilaabay ii sheega? ibliis markii la yidhi aadam u sujuud calayhi salaam, aadam u sujuudha calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam. ibliis malaa'igihii oo dhan war u sujuuda, malaa'igihii waa sujuudeen, laakiin yaa diiday? ibliis baa diiday. ibliis muxuu ku diiday? muxuu yidhi? sababtii baa laynoo sheegayaa, anaa khayrun minhu, anaa ka khayr badan. markaad adiga wiilkaaga markaad dhahdid, gabadhaada markaad dhahdid, aniga anoo reer hebel ah, anoo harin anoo maalin weyne eemad anna ya markaad dhahdid macnaheeda maxaa waaye? waa idiga liidataa waaye. dhaqankaas yaa iskale? anigoo yaa iskale? ibliis. ana khayrun minhu. rasuulka marka la weydiiyey oo la yidhi man akramu nnaas, war dadka yaa ugu karaamo badan, yaa ugu qaandheeraysan, yaa adduunya aakhira ugu fiican, muxuu yidhi? atqaahum, kooda ugu cabsida badan. wax la isku qiimaynayo waa maxay? waa cabsida iyo ilaahay ka baqa iyo asturaanta iyo akhlaaqda wanaagsan, soo maaha? ilaahayna muxuu yidhi ina akramakum cinda allahi atqaakum. ilaahay agtii waxaa idinku karaamo badan. kan ilaahay agtii ku karaamo badanna adduunka isagaa ku karaamo badan. waxaa idin karaamo badan adduun iyo aakhiro kiina ugu cabsida badan. ma aha kiina ugu qabiil ka fiican, ma aha. qabiil ka fiican ma laha, soo ma ogidiin? qabiil ka fiican wallaahi digil iyo mirifle iyo qurayshtii rasuulku uu ka dhashay, wallaahi ilaahay agtii waa isku mid. daarood, hawiye iyo quraysh, weliba reer banu haashim, wallaahi waa isku mid. ina akramakum cinda allahi atqaakum, akramuhum atqaahum. cabsida xaggaa waaye, ma aha kan laguma kala sharaf badna. eega ilaahay baa idinku dhaariye. rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa waxaa loo sheegayaa labo ka mid ah saxaabadiisii. nin reer ansaar ah iyo reer muhaajir ah ayaa isqabanaya. maxay isku qabanayaan? qabiil isku qabanayaan. kii reer ansaar ayaa wuxuu ugu dhawaaqayaa qabiilkiisii, wuxuu leeyahay alla tolaayey, alla reerkaygiiow, yaa lal ansaar. waa sidaad dhahdaante. marka inta meel aad wax ka soo daftid oo xoogaho isbaaro lagu soo kululeeya, adoo gacanta dhiigaaya, aad soo oradid reerkaagii wayagali oo wadoo reebo. waa ummaddii waad kicinaysaa, soo maaha? yaa lal ansaar ayuu yidhi. kii reer muhaajir uu yaabay. meesha la joogana waa madiina.
وبقايا وحوله ما أنت وعد لقوقوينا إساقين قبيل كيسي ودواقي يا للمهاجرين لبدي قبيلة يسوسوا بحي رسولك الله شاقي صلى الله عليه وسلم مركز وحجري بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها ممتنة اي عادة سيرقن كاقروح ضبضا وحجري ما أنو إذن دحجوغا محمد صلى الله عليه وسلم او ما أنت إذن دحجوغا مياد او يارانيسان اسلام كيو إذن دحجوغا كتاب كي سنة او إذن دحيال مياد ما أنت الله طلعي غير هبل مياد لذيهين دعوها كتغا فإنها منتنة ووح قرمون أوري كتغا ليري وحلقة تغا وامعي وقبيال الدواي معها قبيل كي لصعو قبيل معها وحلا نعي لصعو قرو قبيل كشاف أيوليهي إساقا يا حبيب صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم وروحات كبرتان قبائل كينا انت رحم كينا كحرير نيسان ها هبرير ايدو ابير ابتي اووي ابي هويو المعبير المايدو سالو كلا قرنا يا حدانو قبيل جرين قبيل كينا واحد كبرتان انت كحرير نيسان رحم كينا معايلي رحم كوا جنة لغو قلا هدي لقويو رحم كو لحريرين واين عذاب لغو قلا حبيبك دعي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع الرحم ننك رحم كيس قوية رحم كيس حريرين وايا وحاو قليا عذابك ايو قليا جنة مقليا سير رحم كي لو برنا يا مركا رحم كي قبيلك وين ادبرتها مركا قبيلك محا الله كيني ان رحم كايات كو اوغاتد ان مارتاي قرابداد كو اوغاتد ان ياكو ياد قرسانيسا يادن قرسانينين ان اد محرم كايغا كو اوغاتد ديادو كالي اللي اسكو عاويو انتا صدا وحقوقي واجب قبيلك الله برتواه وعباده لكن إن سحن الله استعماله او لغو فانتمو كان كالكيس لغو درو ليسكو عيريو تاسا حارانو الله قلين وانا دقن إعادي إبليس ويا صوما هل حديثان عن ربائنا قبيل كان كقبل حي قبيالده رسولك وحوليه صلى الله عليه وسلم ودارنا يا من صلى الله عليه اسونا دار والله أباهنين ايو ودارنا يا وحور ربائنو نوعدايو غير بيدا بخاصاهن انو وعدايو قبيالده قرن ماذا انت اي قارسي سنتاي وحوليه لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه والله ويكتغايان ويكهرايان ويكفغانايان دك كفانا يا أبيالكود دك قبيل كود كفانا والقبيل لغو مفانو دك قبيل كفانا والله ويدافايان اما الهي اكتي وحي كلي ذنايان حار والوالكة حار والوالكة واتغانا حار والوال سماها واتغانا حار والوالكة كلي ذنايان الهي اكتي لا مدهن هذا الكعاد في صدر هير بيدبو لا مدهن قفك قبيلك كفانا وحلمي ذي حار والوال لا مدهن ابدا معايا لي حار والوالك وحد قرنيسان حارك وحو سمينايا قعموه كورورينايا بلونيو كدقايا قريسو ربا انو قاتو ما حنباركر وانو رقرقا صماها حقوك رقرقايا سنكيسو كرقرقايا خبيث نمو قرن نمو بالكا وحو كقبو يدل نمو قعميه كمريحة يا حارك وحو كريحة يا معي سنكيسو كريحة يا حار والوالا اللي يرهدا دقن كيسا كاسه حتى عبرك في عن الرسول كفير الصحيح قفك قبيالده قبيلك بلايده كفانا انو رير بالدعاية وحوليه الهي اكتي كاسا كفي عن وكلي تاولبه الهي اكتي بمعنى سكال هدان ودقو قبيلك ننك كفانايا وحار والوال وحو كفانايا وحاركا قرنكا يوراي واي موحلو كفانا حاركا حار موحلو كفانا حار موحلو كفانا قبيلك واصح الله استعماله وحار أوري ويان الله وحوليه
إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. إلهي داد يهورر بيدبا داد يهورر بيدبا الله إذن دوريه إلهي وحو إذن كتكسيي فانكي جاهلي إلهي وإذن كتكسيي كبركي جاهلي أبيالكي لغفاني جري أبيال وايا هورد انتي والله ومباهن دين حبيبك أيضا رحية كسل يا حبيبكينا إن دادك وحيري والله إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي دادك والله ومحي لبدا ومؤمن تقية أو إلهي يقان قبيل أنا كفانين وحو كفانا يا عبسده طاعده عبادة إلهي دلكيس كفانا يا فاجر شقية مد إنكار قبل دول درصدي فاجر أو إلهي كفرتي أو هدنا ماركتاي قبيل كفانا يا قبيالد ومد ما أنت نكون حجره قبيل كعناية قبيل وحكو نسايا 4.5 بلايو ومدي وكينايا ومد دانا وإلهي شرفي سيال بلوت كون شالو ليه هو نص حقا لك كان وعس ودقني عادي إبليس ودقني عادي إبليس ويان إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي الناس كلهم بنو آدم ورمضان مدو قودي عدان كودا ما عربتودي عجمتودا كل قود وإلمه آدم وآدم خلق من تراب هذا النوع لقى سميه عرى لقى سميه قيمي غفيرية مركا قبيلك ووحوى ناكسن حدي يصير في عن الله استعماله حدي يصيح الله استعماله وقبيالد وقرن وحر والولي وحكليته صوماها قبيل وكتجينا صوماها قبيل ولا كتجايا صوماها هوينك اللي هذا لا يرجع معاكم داعي ووحى وقبضنا قبيالد استعماله أنا قبيل وكتجينا صوماها خرار بيدا وقبيل ولا كتجايا بلن ميا قبيل ما كتجينا هل قبيل ما صومنهن هل قلبي صومنهن هل دول صومنهن صودول كانوا من نولانينا وما دمانينا وما شقينينا دول كان عزقي سيسو مسو علينينا بيدا بالجناي سو ديبو مسو نولينينا نظافة هذه عافمات كذا سو كما شقينينا وذا جير كذا سو لغا ما شقينايا كذا ير سو الله مطرايو كذا وين سو لما احترامايا إذا كان قعمها سو اسمه قبسانينا waxaan rabaa inaan dul istaago in yar iyadan inaan dul istaago sheegan la yiraahdo qarannimada walaalayaal qarannimada aad ogsoon tihiin waligin qaran haddii lidin dhaha qalbigiina ka fogeeya madaxweyne iyo ra'iisul wasaare hadalkaa iga qora qaran haddaad maqashaan madax ka fogeeya ashkhaasna qalbigiina ka saara qaranka waa dhulkeena weeyaan qaranka waa wadajirkeena weeyaan qaranka waa inagoo dhan oo gacmaha isqabsanna waxaa waajib diini ah in qof walba oo wax fahmaya qof walba oo caaqil ah in uu dhowro qarankiisa oo uu ilaaliyo waa waajib diini ah maxaa yeelay ninka madaxda ah madaxweynaha ama dadkan kale madaxda ah waa khaadimyaal adeegayaal ilaalinaya una adeegaya qaranka weeyaan iyagaa la rabaa inay qaranka ilaaliyaan qaranka waa idinka sida hadda u fadhidaan aad u xoogan tihiin u qurux badan tihiin qaranka lagu sheegayo waa kan qaranka waa nabadan qaranka waa waxbarasho qaranku waa horumar qaranku waa midnimo qaranku waa caafimaad qaranku waa cizi iyo sharaf qaranku waa in lagu ilaaliyo qaranka waa in ummadaha adduunka ay ku ixtiraamaan qaranka waa wax ilaahay raalli ka yahay qarankan madaxdii timaada waa inay ilaalisaa madaxda joogtaana waa inay dhowrtaa madaxu wuu tagaayaa madaxweynaha wuu baxayaa laakiin qaranka ma tagaayo la socdataa madaxdan oo dhan way wada tagaayaan waxay ka tagaayaan qaran dhisan madax kala imanaysa waxay u imanaysaa waa qaran dhisan qaranka yaa ku intifaacaya waa innaga qaranka ilmaheeni baa wax ku baranaya qaranka innaga caafimaadkeena ilagu ilaalinaya qaranka ammaankeenu ilaalinaya qaranka farxadeenu ilaalinaya qaranka waa waxa cizi iyo sharaf waa waxa aynu ku asturannahay qaranka ilaahay wuxuu leeyahay wa'tasimuu bixablillahi jamiican waa qarankii weeyaan ummadda hadday kala tagta qarannimadeedii waa baaba'day
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قبصد حرق إلهي دورتا قرن مدينة وذا جركينا مدن مدينة دورتا محايا لي والله إذن كنا واد أركتين أنكو نوان وارقني قرن بربوري نبك أوليهي اك وحابي دبال لغا قحي دول والبو صوماليا وحا لغا عرري انجيدي iyo ADCdii bakaaradii oo raashinku uu ka buuxo talaajadii oo buuxa ayaa laga kala cararay dadku way oonaayeen biyihii way ka carareen way gaajeysnaayeen raashinkii way ka carareen way cuni waayeen maxay cuni waayeen maxaa biyihii loo cabi waayey maxaa abaartii ay noogu dhacday geedaha caleentooda iyo geedaha qolfahooda iyo meydka xayawaanka maxaa loo cunaayey annagoo raashinkeennii beeraheennii ay baxayeen oo aan ka soo tagnay sababta ma garanaysaan maxay ilmaheeni jidadka looga tagaayey oo ay u dhimanayeen sababta ma garanaysaan waad yaryartihiin annagaa aragnay sababta waxaa waaye qarankii lagu cuni lahaa cunnada qarankii lagu cabi lahaa biyaha qarankii lagu seexan lahaa ayaa la burburiyo la waayey waxa hooyadeenna ay u dhimatay waa qarankaas oo la waayey ilmaheen u dhinteen eeyihii u cuneen waa qarankeenniyoo la waayey geedaha qolfahooda iyo caleentooda sida xoolihii in aynu cunno oo hungurigii uuna qarxo maal iyo balaayo ay gasho waxa sababay qarankeenii ayaa lumay yaa garanaya caaqilka garanaya war caqligeennii aaway caqligeennii aaway ilmaheenna maanta waxbarashadii dhan way ka luntay aaway maxaa ka lumiyey qarankii ay wax ku baran lahaayeen ayay laayihiin magaalada dhinacaas ugama bixi karaan dhinacana ugama bixi karaan maxaa keenay maalintii hore wallaahi berisamaadkii geekimarida wallaahi dugsiga qur'aanka marka khamiista nala soo daayo jimcaha waxay noo ahayd ciid maxaa yeelay gerbidaan aadi jirnay gerbida gorodaasan maa gerbida wallahi ma jirnin guriga markaan ka baxno ilaa gerbida aan ka tegayna wallaahi waxay noo ahayd janno inaan ku jirna geedaha dhakaruurta dheenta miraha la cunaaya biyaha la sii cabaaya farxadda neecawda qabowga dhammaanka wallaahi wajah habeenkii aan soo noqon jirnay ilmaheena aawey maanta maxay ku koreen waxay ku koreen xabsi iyo qori iyo maaragtay baabuur oo maaragtay toban ruux saaran tahay iyo dad ajaanib oo ilaalinaya maanta ilmaheen ay arkayaan aaway wanaagii baydaba jannada aaway jannadii aaway qaar waxay leeyihiin magacan maxaa loo bixiyey jinaawkay halkan ku taala xalay ayaan tegey beerta gadaale beer aada u qurux badan oo wallaahi isoo xusuusisay waagii berisamaadkii ayaan tegey markaasaan yidhi wallaahi macalin ilyaas khayr allah siiya allah dhowreed waxaan ku yidhi wallaahi jinaawkay magacan aad u bixisay waad la heshay xaqiiqatan jinaawkay waa halkan laakiin waxaan ku yidhi waxaan rabaa baydhabo idaylkeed jinaawkay in laga yeelo in la beero ubaxaas in quruxdaas la beero in cagaarkaas la beero indhuhu ku doogsadaan in ammaan la beero laabteenu ay ku doogsato in cilmi la beero jahliga aan isaga qaadno waxaan rabnaa jacayl in la beeraan rabnaa diyaar muu tihiin jacayl inaan abuurno diyaar muu tihiin ma aha aflaamtan hindiga ee atooraha iyo tiriishada ay jacayl aan jirin romansi aan jirin amoore aanan jirin ay matalayaan ma rabno waxaan rabnaa jacayl xaqiiqo ah oo laabteenna gala oo dhab ah idaylkeen jacayl ina mideeyaan doonaynaa waxaan rabnaa jacayl hal qof naga dhiga jacayl ul iyo diirkeed naga dhiga jacayl cilmina geliya uurkeena ka saara jahliga jacayl uurkeena nacaybka ka saara jacayl cayshkeena waasiciya jacayl waxaan rabaa inoo celiya beerihii laga soo tegey jacayl waxaan rabaa warshadihii inoo celiya jacayl waxaan rabaa madaaristii iskuulkii inoo celiya jacayl masaajidadu aamin yihiin ayaanu doonaynaa jacayl waxaan rabaa garoonkan 30 sano eber yahay
واجي هربو قروح بدنا اجي لاعب عندكم داريه جعيل وحان ربا قرون كم بوحيه سوعلي ترتنكي عيارها يا ربنا جعيل وحان ربنا مدحوينه انكو كلسونahay وزارة الله شقيه قلبي وناكسن او شعب وشقيه شعب مطيعينه وركا مغليش ومدحدوده جعيل نوعاس ربنا جعيل مدحدي شعبكي دولدي شعبكي اي ولاليين ربنا جعيل وحان ربنا عدوغينا ونقبقو وحان هنجرني لباحي افريكان وهنجرني لباحي افريكا قسك افريكا معها لباحي افريكا يان وهنجرني محمد سياد بري وحد قرني سنة الله ونحرسته حتى هيك وحوال بول لغا شايف يوغندا اي تنزانيا او دولة واوينة ايو هلكن انتو اغو ياري ايو قعمهود ايسا صاري اوي ما انتنا اننا لينو يرايا ايك ميزانكي سودو ايسو قديي فيري من ربنا وحن ربنا لباحي انا هنجرني ان دب سو علينا والله ثم والله وان سو علين كرنا لباحاس بيدبو halkan waa halkii dawladda lagu aasaasay wad garanaysa wasiirka awqaafta arrimaha diinta Sheekh Cusmaan Dhubo Allah dhawre oo garab iyo haruntii ayaa iiga sheekeynay halkan waa halkii lagu aasaasay dawladaha Soomaaliya halkan waa halkii la isugu keenay by project halkaas la degay oo la fadhiyay waagi araareeda ilaahay baa ku dhaariyay waxaan rabaa Afrika oo dhan haddaan rabna inaan cizigeeni soo celino afrikaan horumad u noqono halka laga aasaasayo baydhabo inay noqoto maadaama aan u dhashay warsaw maaha sow sidaa maaha maxaa yeelay wajiyadan quruxda badan ee aan arko rag iyo dumar wallaahi waxaan hubaa haddaan maanta hadalka aan dhahayo aan qaadana dhabna aan ka dhigna garoonkan aan looga tegin dhegtana aan laga bixinin uurkeena uu galo wallaahi baydhabo haddaan 6 bilood kadib ku soo laabto waxaan u soo laabanaa baydhabo janaaya u soo laabanaya baydhabo janaaya u soo laabanaya allahu akbar allahu akbar allahu akbar iyadan ku noolaanayna iyadan ku dhimanayna iyadan ku soo baxayna الله يدن بركة يا رير بيدبو آد بانيدين جعلها وحان ربا دقالة بدن با دعي دقالة بدن با دعي واليس دلي واليس دلمي دول بدن با لسك قاتي واليس ريح ريحي قبائل با لسكو ريح ريحي واليسوا ووت شاكتي مساكينتي مظلومين تاها دول كالا دقي قار والا لايي قار نوارك تاي سيعب يكون نوليهين لكن حدنا سيدا سايتاي حبيب كاني هذا دقيست كلمة دوا كلمة دي وقدام بيسي حبيب كان صلى الله عليه وسلم وعد قرنا إنسان نبك اللي دين جيستي بايسن اللو جيستي يستغوا ولي بافرتن كنتن بقول روح يقوا ضعيف ayaa la dhibay sida la idin dhibay ilmihiisii baa la laayay awlaadiisii baa la dhibay reerkiisii baa la qixiyay waa la caayay wax walba xun baa lagu sameeyay gurigiisii baa laga cayriyay haddana waxaa la dhahayaa fa'fu anhum wastaghfir lahum cafi baa la yidhi oo ilaahayna u dambi dhaaf weydii maxaa yeelay waxaa la rabaa in lis hor fariisto oo la yidhaahdo war maxaa naga khaldan walaalaynu nahay وشاورهم في الامر مركز ارنك كورما ليري ارنك لغما ورمي كره ورمحادني نو ولا ما دهي كره لا لما روح waxay soo fariisan kartaa laabtooda markay isu xaaran tahay marka cafis uu dhaco cafiskan macnaheedu ha u maleynina in wixii la soo maray laga tanaasulayo maya dhulalkii in sida lagu dhaafayo maya dii in sida lagu dhaafayo maya laakiin waa maxay waxa waaye gobol wuxuu furayaa in la wada hadlo fa'fu عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله وعن ربنا ما انت رير بيدبا اذا الكين انينو قعمها يسخبسنو انينو انت النول عفنو انت ديمتي عفنو كوة دوي كوة دير ديار موتين ناس عفسان ديار موتين ناس عفسان ديار موتين إلهي بندكو داريه وعن ربنا قعمها هنا انتاقنو انت إلهي درتي يسعى فريسة قعمها يتاقا قعمها يتاقا كاميرا دي يهو غبتا قعمها يتاقا الله يدن بركاية قعمها يتاقا معفسين ولا لين إذن كميس عفسين انت ديمتي معفسين انت النول معفسين انت فوق انت نو معفسين
الله إذن عافيه الله إذن عافيه الدون آخر الله إذن عافيه وانا إذن كسو نغنغن دون أدو إلهي يرادا الله إذن بركيه استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله آدن إذن سلام يا دادك شيخ محمد إبراهيم كنياوي إيدان ما سني شعبك رال هذا دلن يرى رال هذا ميلين روغا رال هذا معنا ما يقاضو كور علاس ما يقاضو كور رال هذا مركز لنكس ميليس روغي أيلاس دعقلني مركز شيخ محاضرة جيدي إن شاء الله إيدان ما سنتين شيخنا سين سلامي مكورة بس سين سلامي إن شاء الله مركز آداب الكباوي قبلو صعدن كبعض دلن يرتكيك سيدين إيدان ما سنتين